waxaa walaal jaamacadda aad turki ka dhigato ma cunto karin ayaa ka bartaa mise wax kale yacni gaarig intaa sii saarnaa aa kool ii soo dhacay waxaana la ii sheegay inuu geeriyooday baybigaaga koowaad ama cunugaaga koowaad imise jir waaye just bas farandi kalimiyaha she is my role model oo ku daydaa youtube-ka meeqa lacag baa ka heshaa bishii السلام عليكم أصحابتي إذا جعل سود وهذا من الباجوكتان ومركلي ولا شيء نسرابت دون هذا جنال كيوتيوب نقداونه يسو سبسكرايب نوصار سو كلا ده فيسبوك إنه نقداونه سنة فولو إنه صوري بيج كنا إن وايدين كم هدعلنا سامر البيو حرنتهين مرة وحق سعنا سديدي بقول وحيرانو قد من فهمت مرة دخسيها اللي جارسي ومقال كان لايك إنه صارة المقال كان حكوا سابسين أو كهاد لايا in Q&A waxaa soo dhigay Instagram-kayga sida caadiga ee Q&A aan sameyn jiray sanadkii hal mar labada sano hal mar asxaabteyda Jaanis ku siin jiray su'aalaha ay rabaan ay weydiin karaan Instagram-ka soo dhigay Q&A su'aalo badan aan lagu soo weydiiyay meeshaan su'aalihiin ku heystaa su'aalahaas ka jawaabi doonaa insha Allah aad ay u tiro badnaayeen qaar badan oo isku egna way ku jireen wixii isku eg hal xabaan ka soo qaatay okay waxa guda galeynaa سؤال كواد وحيلة هاي ما جرتا مالين عقبت أو سؤالها هرت زائد وكل ليهين I don't know ويوصل أتكسنت وكذا ويجور سؤال خفيفة ويدي جرتين سؤال كواد وحيلة هاي ما جرتا مالين عقبت نولش قبستي درتي عدل الميسي of course نولش فرحد ما هو نولش حسو جرتا عقبته معلومة جوله maalmo oo oohin maalmo qosol like wax walba yacni nolosha ku soo wajahaysaa way jirtaa soo maalmo oo caqabad ama wax inta la kulmo aali ilmi darteed su'aasha labaad waxay leedahay maxay ahayd intii aan nooleed qisadii kuugu xanuunka badneed ee aad aragto maskaxdayda hadda dib u celiyo inta caqliyeystay qisadii ugu xanuunka badneed aad arko waxay ahayd macallin iskuulkii ii dhigi jiray oo la dhihi jiray ustaad xasan ilaahay ha u naxariisto maalin maalmaha ka mid ah iskuulka imaaday qamiisay ahayd waxaa keenay ilmo ila dhashay keenay oo qamiis iyo jimcaha dhiganayeen iskuulka ani asaga markaas is aragnay waa is salaanay waa isla kaftanay waa soo baxay gaariga soo koray waxaa u maleynaa gaariga anuu ka dagin يعني جارين أنت سيسارنا أقول إيش صار دعوة حنا الإيش إنه جيريودي سبحان الله like وحياة يوحنون كبدنا لو شيء أنت حسستوها يسا وأنا حي معلن كاس سدح بري وينا سدح بري يقف حد أسلك فتمتين أو سوق التكتين إلى أمريكا سحال عيدا ما إسحبدين أصلا ملام بوجوجي باور وصارنا حبديه متكم إذا مدح وقدر عادي إن إلى أن حرستو سو دعاء أنت دعونا اسمه قال كان إنه إلى قبر جيس واسعيو معلن aad wanaagsan oo ahaa sanadkana waxay ahayd 2012 xiligaas iskuulka adeeganayay wax xasuustaa reer iqro way yaqaanaan dadkii iqro iskuulka ka baxay way yaqaanaan way xasuustaan badankood soo macalinkaas ay ahayd maalintii wax xanuun ka badneed inta xasuusanahay hada ilaahay naxariisto asagana qabrigiisa ilaahay u nuuriyo waxa gudbaya almost 12 sano ka soo wareegtay waxaa la weydiiyay ma jirtaa hal wax oo markaad xasuusato faraxdid ilaahayna u mahad celisid oo gabar waayis su'aasha waxay soo weydiiyay wax oo markaa xasuusto farxo ilaah u mahad celiyo waxyaabo badan wallahi hal shay hadaa ku soo koobo caasi aan noqonaa like waxyaabo badan jiraan oo markaa maxal dhigi jiray xasuusto farxo ilaahayna u mahad celiyo waxa kamid ah ilaahay diinta uu nasiiyay islaamnimada uu igu dhaliyay igu barbaariyay waalidka fiican uu isiiyay inuu awlaad isiiyay laakiin nimcooyinka ilaahay way badan yihiin soo ina waxyaabaha kale ku sii farxa kamid ah xilli hore yani anoo yar ina guursaday awlaad dhalay ilmahayga maanta ma sha Allah ay koreen ani wax baranooyo like alxamdulillah yani waxyaabo badan oo ilaahay ugu mahad celiya jirta marka xasuustana farxo laakiin hal iyo laba muksoo koobi karo way badan yihiin nimcooyinku ilaahay siiyay ama dhamaanteen buu ona siiyay su'aasha xigta waxay leedahay jaamacadda dhamay rabtaa maxaa qorsheynay kadib jaamacadda wallahi jaamacadda way dhamaa rabtaa waxyara iiga haray 3 semester kaliya ii hartay ilaahay igu dhamay caafimaad second thing su'aasha xigta laba su'aal isla socdo waaye maxaa qorsheynay jaamacadda kadib
balaniska mar walba waxay ku fiican yihiin secret inay ahaadaan soo waxa aa balangareyn oo jaamacadda kadib hadda ma rabin inaan idinka sheego waa secret markaas hadduu ilaahayna gaarsiiya arki doontiin insha allah su-aasha xigta waxay leedahay best friendigaaga kuugu qaalisan nolosha yaa waaye best friendigayga nolosha iigu qaalisan saaxiibadeyda caadiga ah leeya markii laga soo tago best friendigayga iigu qaalisan waxaa waaye ayeeyaday macaan oo isoo korsatay ruqoye yaasiin cali waa ku jeclahay just best friend kaliya miyaha she is my role model oo ku daydaa wanaaga uga daydaa wax walba uga daydaa like ayeeyaday waxaa u malaynayaa zaaid aa u jeclahay best friend ay tahay waa la tashtaa sirteeda u sheegtaa like zaaid aa u jeclahay su-aasha xigta waxay leedahay ma jiraa wax markaa xasuusato aa ka shalaysid haddaay wax markaa xasuusatay farxadee tan waxaa waay wax markaa xasuusatay aa ka shalaysid of course way jiraan wax markaa xasuusto aa ka shalaayo ma dhahda weliba zaaid aa uga shalaayo laakiin ma rabi inaan inta ka sheego waxa aniba ka shalaaya ani aa ka shalaynaya inaan inta kasii sheego miila fiicno ma fahamteen laakiin way jiraan wax aa markaa soo xasuusto aa zaaid uga shalaaya aa ka qoomameeyo laakiin inkastoo ay shalaytada ay fiicneen qofkan wuxuu dhahay your first born is how many years old wiilkaaga koowaad babygaaga koowaad ama cunugaaga koowaad imise jir waaye 9 sano jiraa wiilkayga curadka ilaahay hadeestaha xafido maahir cadde 9 sano jiraa su-aasha xigta waxay leedahay maxay ahayd wixii ugu faa'iidada badnaa oo aad soo faa'iiday inta dalka dibadiisa ku maqneed maxay ahayd wixii ugu faa'iidada badnaa ee aad soo faa'iiday wallaahi horta markaa waddan kala tagtid like dad waxaa u tagaysaa culture ka duwan leh waxaa u tagaysaa maxaa la dhihi jiray dad oo like dhaqamo kala duwan leh ajaanib isku jiro yacni xitaa waddankaas aad tagaysid dad kala duwanaa ku nool soo wixii ugu badnaa aad soo faa'iiday waxay ahayd experience-ga inaa bulshada ajaanibta qof walba aa dhexgeli kara aa la noolaan karo yacni inaa qof walba fahmi karo like taasaa dhihi karaa wixii ugu faa'iido badnaa soo faa'iiday inaa like dad kala duwan la macaamili kartid la shaqayn kartid waxa idin dhexmari karaan like dad ajnabi wadamo kala duwan kasoo jeedo su-aasha xigta waxay leedahay youtube-ka meeqa lacag baa ka heshaa bishii su-aashan hadda ma idin dhihi kari waxaasaa youtube ka helaa laakiin haddaad jeceshihiin inaa youtube-ka waxyaabaha ku saabsan lacagta ka helo bishii intaa ka sameeya haddaa rabtiin inaa waxaas idinkaga soo jawaabo hal muuqaalo fula idinkaga soo sameynayaa sababtoo ah inaa la kala dhigdhigay rabtaa tan su-aal oo kooban because bisha hal lacag oo isla eg maba laga helo youtube bilba waxaa ka heli waxaa laga yaabaa bil lacag grisna ka heshid bilna lacag badan ka heshid soo hal muuqaalo fula idinkaga soo sameynaa oo lacagaha uga hadlaa youtube-ka haddaad jeceshiin oo xiiseynaysiin okay su-aasha xigta waxay leedahay what is your biggest fear waa maxay cabsidaada ugu weyn yacni waxa aad ka baqdid maxaa waaye english ahaana lagu soo qoray I don't know qof isoo weydiiye ani cabsideeda ugu weyn waxaa waaye dhimasho ama geerida qof walba uu ka baqaa laakiin ani waxa azaidka uga sii cabsada waxaa waaye ilaahay inuu yacni qaatamo xun igu dilin ilaahayna mar walba taasaa ka baryaa ilaahayna dhammaanteen waa nooga baryaa inuu qaatamo wanaagsan na siiyo ama nagu dilo like waa wada dhimanaynaa waa ognahana laakiin ilaahay waxaa kaloo isweydiiyaa ilaahay maxaa la hortagaysaa like su-aalo badana isweydiiyaa waxyaabaha ka cabsada maxaa waaye qabriga ka mid marka dhinto yacni waxyaabahaasa ka fikiraa marka ilaahay qaatamo wanaagsan hana siiyo hana naga dhigo kuwa aakhiradooda u shaqaysto okay su-aashaas intaasaa uga baxaa su-aashta xigta waxaa waaye ma laga yaabaa youtube-ka inaa iska dayso mustaqbalka wallaahi waa macquul inaa iska daayo inaa iska dayninna macquul inaa iska daayin macquul laakiin waxay u badan tahay inaa iska daynaynin because waa jeclahay markii laga soo tago lacag iyo waxaas okay su-aasha xigta waxay leedahay marka aad jaamacadda dhammayso turki ma ka soo goosanaysaa mise waad joogaysaa ama waxbarasho kale jaamacadda haddaa dhammeeyaan turki inaa sii joogo ii qorsheysno hadduu ilaahay idmo inaa kasoo tagaa ii qorsheysan waxbarasho kalena waxaa waaye ma ogi laakiin hadda ma iisii qorsheysno inaa gadaal ka qorsheysan doono ma sheegin laakiin hadda ma ii qorsheysno okay su-aasha xigta waxaa waaye inaan youtuber noqdo abaayo inaan youtuber noqdo haddaa rabo inaa caan noqdo miyaa ku horeyso
no qasab maaho inaa caan noqotid youtuber haddaad rabtid inaad noqotid waa noqon kartaa caannimo inaa caan tahayna muhiim ma aha dad badan ani ka mid ahay markay youtube soo galeen kadib ay caan noqdeen like youtube-ka ka hor caan maysan ahayn marka waa soo geli kartaa markaa soo geshid kadib aa caan noqon kartaa su-aasha xigta waxaa waaye maxaa ku cabsi geliya maxaase ku farxad geliya markaa keligaa tahay walaahi waxaa i cabsi geliyo ani dhimasho leh haddii la iisoo sheego qof dhinta waa baqaa anoo keligay ee su-aasha waxaa raacsan markaa keligaa tahay maxaa ku cabsi geliyo maxaase ku farxad geliyo ani markaa ani meel iska jooga yacni qof aqaano siibo markii la iisoo sheego qof hawlaa dhinta waa baqaa wallahi waxaastaa allah yaa og qofka ku xigi doono adi miyaa qofaad jeceshaha muu noqon doonaa like dadka aad jeclaa xataa waa u baqaa ma aha micni nafteeda keliya uma baqi dadkas xataa inaa waayo waa ka baqaa allah ilaaha og qof horumari doono laakiin markii nafteeda laga soo tago dadkii igu hareereysan aad jeclahay familkeyga waalidiinteyda ugu horeeyaan yacni zaida uga cabsadaa marka taas ay cabsi geliso marka waxaas dhimasho camal la iisoo sheego maxaa ku farxad geliya markaa keligaa tahay maxaa i farxad geliya markaa keligay ahay waxyaabo badan ay farxad geliyo waxaa ka mid ah waxyaabaha zaidka ii farxad geliyo in sameeyo wax ilaahay ugu dhawaanayo zaid ii farxad geliyaan yacni acmaal wanaagsan inaa sameeyo farxad badan ay siisaa wallahi xaqiiqatan ma isku kiinfaanaa like farxada ka helaa example yara idinka siinaa salaada markaa waqtigeeda ku tukado way i farxad gelisaa waxyaabaha i farxad geliya ka mid tahay waxaa kaloo i farxad geliyo dadka igu hareereysan markay ii farxsan yihiin like familigeyga saaxiibadeyda ii dhadhow yacni markay ii farxsan yihiin ayaga agtooda anigana waxyaabaha i farxad geliya ka mid tahay soo su-aashaas intaasaa ugu gudbaa su-aasha xigta waxaa waaye maxaa ka xanaaqdaa su-aalaha isku dhadhow yihiin maxaa ka xanaaqdaa ani waxaa ka xanaaqaa beenta iyo khiyaanada labadaas zaa'id u nacbaa way inaga xanaajiyaan like qofka hadduu lacalla qalad iga sameeya xataa waxaa jeclaa intuu idho waxaasaa kaa sameeyey yacni ii qirto intuu iga qarin lahaa ama i qiyaami lahaa zaa'id u nacbaha khiyaanada iyo beenta waa ka xanaaqaa labadaas turkii waqtiga aad rabtid miyaa aadaa oo wax barataa mise fasaxa qaadataa oo waa usoo noqotaa su-aasha xigta saasay leedahay micnaha waqtigaa rabtid ma aadi kartaa no waqtigaa ma aadi karaa ani xilliyada turkiga aad waxaa waa xilliyada jaamacadeeda ii furan tahay xilliyada aa soo baxo wadanka imaada ama meelo kale aadan waxaa waa xilliyada jaamacadda ii xiranta oo aa fasax ku jiro meeshaan jaamacad waa sister asxaabteyda sorry anagoo videoga dhex inoo marayaa salaad maqrib lagu aadamay waxay noqotay inaan salaadii aadno maadaama adinka soo dhex galay hadeertaana dib iskugu soo laabanay su-aaliyaa noo sii wadayaa su-aasha xigta waxay leedahay turki waxbarasho mooye shaqo miyaad ka haysaa maya turki wax shaqo ka haayo oo waxbarasho ka ahayn ma jirto just wax lay ku bartaa calaasaa ka dhigtaa su-aasha xigta waxay leedahay ma laga yaabaa inaa business woman noqoto business woman waa ahay maxaa u malaynaa qofkan aad moola socdo dukaan waxaa ii furan maacuunta alaabta maacuunta lagu gado guri bile inta taqaano so businesska ma ka marmin insha allah inaa businesskayga sii badiyo waa laga yaaba laakiin businesska ilaa yani waa ku dhex jira hadda okay su-aasha xigta waxay leedahay inta aa youtube-ka ka maqnayd 3 bile ka wadaa oo aa youtube ka maqnaa nafsi ahaan maxaa isdhihi jirtay maqnaashahaaga culays makugu ahaa ها والله علاز زائد ويقولها نفس ديدي يعني ما أنت أنا واحد دريم يجري محا مقنتها نصر ما يوتيوب وحسو جلست يعني نيدي وكربي لكن حل يجري علاز أي صارنا إنا حسو جليو ساس الدريم هاي سأشارك توحاوي ولا الجامعة أترك كريجتو مع عنتكرين أي كبرتها مسوح كلي ها عنتكرين بسها مسوح كلي إذا هذي وعنت بس وحكى المقبرتي شهادة إذا عنتك بسوق هذا وأم جامعة إذا دقيقة ما توحي نقنيسة شاف إني أم عنت لي ده بدنا يحمل وحكى لنا برنوي لك وحكى لنا برنوي إن قبل أن كانوا حيسوي ديسي قلبي وناجي إذا هذي الصون كحاجة كسوة ميسا إن شاء الله horta ilaaha og meeshay ku soomi doono laakiin ani waxa ii qorsheysan turkiga inaan ku soomo sababtoo ah jaamacadeeda furan soonka hadda la soo dhaafay muqdisho ku soomay sababtoo ah jaamacadda online ay ahayd maxaa la yiri dhul gariira turkiga ka dhacay laakiin hadda jaamacaddu way furan tahay soonka waxaan ku qasbanahay inaan turkiga ku soomo insha Allah haday wax kala dhicin su'aasha xigta waxay leedahay waxaad isiisaa talo adduun iyo aakhiraba bi anfacdo wali waxaan ahay ardayd maxaad igula talin lahayd يعني إسيه إذا هذا تلان أدوني آخر أنفعه تلا أدوني آخرك أنفعه هدار بتد تلا أكسينا وحواي
inaa mar walba samaysid wuxuu ilaahay raali ka yahay ilaahana aa u dhawaatid like wax walba markaa samaynaysid waxaa ku dabaqdaa waxaan ilaahay raali ma ka yahay haddaa le saas u fikirtid adduun iyo aakhira way ku anfici doontaa insha allah anagana ilaahay hanaga dhigo kuwi oo ku camal falo qofkan wuxuu idhahay ma jirtaa dabeecad aad ku saamaysid qof kasta dabeecadda aad ku saameeyo qof kasta aniga waxaan u malaynaa inay tahay ani waxaa ahay qof dulmiga aa jecleen qof kulkulul yacni dabeecaddeeda qof kulkulul ahay yacni qof wax walba ka aamusi kara ama wax walba u dulqaadan kara ma ihi soo dabeecaddaas aan u malayaa dabeecadda oo qof kasta aa ku saameeyo inay tahay kulkuleelka kulkuleelka markaa dhahay dabeecad xumaa makawdi waa dabeecaddeedu fiicanta dadka waa la dhaqmi karaa laakiin wax walba oo dadka waxyaaba ay u dulqaadan karaan ama ay ka aamusi karaan in ka aamusi karisiiba dulmiga anoo ka hadlaa is arkaa soo dabeecaddaas qof kastaa ku saameeyaa haddaa xasuustay barnaamijkii baraankiga lagu sameynayay astaan waa ogadeena u malaynaa gabaraa lala dagaalay anoo soo dhex galay bas arkaba dagaalkii gabadha la dulminayaa diidanaa soo dabeecadda qof kasta ku saameeya waxaan u malaynaa inay midaas tahay su-aalaheen intaasay kusoo gabagaboobeen waxaa rajaynaa inaad ka bogateen su-aalaha waa igu soo adkeyseen maantay next time Q&A aa sameeya waxaa idinka rajaynaa inaad su-aalaha iisoo fududeysin insha allah waxaa idinkaga tagaa khayr iyo caafimaad waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka aad daawateen